waxaan leeyahay wadagaalamaynaa dumarkiyo rageennaba ina soo dareershay hagaag daawadayaal halkan aan ku sugannahay waa afaafka hore ee safaaradda dalka Itoobiya ay ku leedahay magaalada London ee cariga Ingiriiska sida aad aragtaan waxa isugu soo baxay boqolaal ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalkan Ingiriiska jaaliyadda waxa ay diidan yihiin heshiiskiisa afgaradka ah ee dhawaan ay kala saxiixdeen Itoobiya iyo gobolada waqooyi ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee Somaliland jaaliyaddu waxay sheegeen in heshiiskaasi uu ahaa heshiis meel ku dhac ku ah madaxbannaanida dhuleed iyo badeed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya jaaliyaddu waxa ay sitaan boorar ay ku xirnay yihiin sida ay u diidan yihiin in lagu xadgudbo madaxbannaanida Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa kale oo ay wataan boorar ay ku xirnay yihiin oo ay diidayaan gafka Itoobiya gaar ahaan ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya oo ay leeyihiin inuu yahay nin dambiilaha oo raba haddana inuu ku xadgudbo jiritaanka iyo madaxbannaanida dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya jaaliyadda oo ka kooban qaybaheeda kala duwan isla markaana ka kala yimi gobolada iyo magaalooyin kala duwan ee dalka Ingiriiska ayaa waxa ay siteen boorar muhiim ah oo muujinaya sida ay u midaysan yihiin iyo guud ahaan sida ay ugu soo horjeedaan badamaca Itoobiya waxay ugu baaqeen madaxda Soomaalida iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ee ku nool daafaha caalamka sidaan oo kale inay isugu soo baxaan isla markaana ay u muujiyaan dareenkooda ay ku diidan yihiin damaca guracan ee Itoobiya ee ay ku doonaysay in qayb ka mid ah biyaheena ay ku soo caga dhigitaan waa markii ugu horeysay tan iyo kowdii bishan markii heshiiska la saxiixay ay jaaliyadda sidaan si lamid ah isugu soo baxaan oo ay dareenkooda muujiyaan dad kala duwan ayaa halkan isugu soo baxay waxa ay wateen calamada Soomaaliya waxa ay muujinayaan sida ay u diidan yihiin waxaan wareysan doonaa qaar ka mid ah dadkaas bal muhiimadda aad soo bixitaankiina maanta nooga waran السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان waxaan u mahadcelinayaa jaaliyadda Soomaaliya ee UK sida wanaagsan oo ay u muujiyeen shucuurtooda waxay ummadani ku soo baxday maanta baaqi madaxweynaha oo ahaa doorkiina qaata difaaca dalka runtii difaaca dalku cid walba oo magaca Soomaaliyeed sheegata ayuu waajib ku yahay waxa weeye barya maaha waa qasab inaan dalka yaga difaacno dalka yaga waxa si qaawan ugu soo duulay Itoobiya caalamkuna waa ka hadlay meel walba waa lagala hor yimid wayna diideen annana waxaan difaaca yaga iyo dalka yaga inaan difaacno diyaar aan u nahay maantay oo qabowgan iyo qobadan aan ugu soo baxnay waxa weeye damiirka yaga ayaa noo ogolaan waayay annagoo nool adduunka joogna si sahlan in dalka yaga lagu qaato dalka yaga waa difaacaynaa waxaan maantay ka hor imaanaynaa kelmaddii xumayda ahayd waxaan gatay saylac dekadda saylac baan gatay wax la aqbali karo iyo wax la yeeli karo midna ma aha dadkaani waxay diyaar u yihiin mana ahan isku soo baxayagu maanta keliya ilaahay idankii waxaan rabnaa inaan raatib ka dhigno ilaa aan ka gaarayno guusha arbaca walba in aan u istaagno difaaca dalka oo aan ku mudaharaadno halkan dadkiina way soo socdaan mudaharaad ballaaran oo saqiir iyo kabiir leh ayaa loo imaan doonaa aad iyo aadna waan kugu mahadcelinayaa waana mahadsantihiin waxaan leeyahay wadagaalamaynaa dumarkiyo rageennaba ina soo dareershay wandagaalamaynaa war dumarkiyo rageennaba ina soo dareershay waxaan la dagaalamaynaa cadowga ugu daran adduunka Itoobiya la dagaalamaynaa aad u mahad dareenkaaga iga waran dareenkayga lagama hadli karo waxaan diyaar u ahay inaan gashado dareyskii ciidanka waxaan diyaar u ahay caruurteedii anigu inaan israacno waxaan diyaar u ahay inaan furinta hore tagno waxaan diyaar u ahay dalkayaga iyo badayada iyo dadkayaga inaan difaacno cid naga hari mayso Itoobiya digniin baan u diraynaa watch out Soomaaliya dhulkeenna beec maaha iibna maaha waxaan rabaa inaan u sheego Abiy Ahmed iyo xukuumaddiisa awowgaa wuxuu heli waayay adiga heli maysid awowyaasha waxay heli waayeen adiga heli maysid annagii idinkana waan isnaqaan
laga bilaabo 1440 ilaa hadda ayaan isnaqaanaa taariikhdii Axmed Gurey uu lahaa waad ogtahay waxaa ku soo xigtay tii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan waxaa ku soo xigtay tii kale 1884 Berlin Conference raggii ka qayb galay in Soomaaliya la kala qaybiya ayaad ka mid aheedeen oo support occasion saddexdii dawladood oo European-ka ahaa Talyaaniga iyo Faransiiska iyo Ingiriiska 77 iyo 64 waa isbaranay haddii walaalow aad diidid waxaa imaanaysa waa la isku qaacinaa raggii dagaalami jirnaan nahay jilibkan ku laabanayna burburkana adiga aad u malaynaysa Soomaaliya inay burburta annaga waa ku midownay maamul goboleed ha ahaado shacbiga Soomaaliyeed ha ahaado nin dunxun oo quality-giisa oo u dhintay annaga Soomaalinimada nagama qaado waxaan ku sheegayaa guri muraayad leh qurux badan baa degantay gurigaada hadaadan ilaalsan muraayadaada waa jajabe dawladdaadana waa kala burburaysaa oo waxa naga maqan oo dhan diban u soo ceshanaynaa oromana dawladdeeday qaadanaysaa amxaarana dawladdeeday qaadanaysaa tigree dawladdeeday qaadanaysaa ummada dawladdeeday qaadanaysaa afarta dawladdeeday qaadanaysaa adiga ayaa iga xun oo iga liita waxaan ku dhihi lahaa aayar isku celi aayar aqligaada ka shaqaysii haddii xukunka uu ka dhamaaday aniga ha igu raadsanin kursi kan kaloo wax iibiyayna kursigaada waxaad ku helaysaa walaalow ma ahane waxaad iibisa ku heli maysid waladaadina hablahan ugu galaya in raali noqdo labadiina halkay bal soo dhawow waxaad sidataa calan ay ku qoran tahay sidee loo sii Abi Axmed bilada nabadda maxay arintaas ku qusaysaa adiga waxay ii qusaysaa ninaan bilada u qalmin ayaa la siiyay waana ogeen inuu Abi Axmed iyo amxaarada ay markii horeba amxaariyaan dhihin Itoobiyaanka markii horeba inay ahaayeen dad aan nabad rabin annaga badayna iib ma ahan Soomaali haddaan nahay shacabka Soomaaliyeed qaranka Soomaaliyeed waa ka wada midaysannahay inaan badayna la iibin waa ka wada midaysannahay in taaka dhulkayna oo na iib naqanin Abi Axmed waxaan u sheegaynaa ummadda ha qaldin kuwa ku ag jooga adiga dagaal maanta meel kasta ka burburtay annagana waxaad ogaataa haddaad isdhehaysid maanta dagaalay ku jiraan ka ku jirtida naga badan annagoo dagaalkaas ku dagaalamayno gacanta midig aan gacanta bidixna adiga iskaga ka qabaynaa ha isdhihin ilaali tijaabada dhaaf waana tijaabiyaysaa ma ahane inaadan awood lahayn waa ognahay waxa aad sheegaysidoo dhan oo dagaalka aad wadid waa tijaabo nooma soo bareeri kartid waxaanaha waad ogtahay Abi Axmed ummadaada ilaasho Soomaaliya waa mid dhinac kasto ama noorta naqato ama koonfur ha naqato meel kasto mid ayaan ka nahay kan Hargeysa joogo kan u saxiixa kuma raacsano waxay raacsan yihiin inay badooda ay difaacdaan wabillahi tawfiiq aad baa maasantahay walaal soo dhawow bal maxay tahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta shucuurtayda lama soo koobi karo halkan waxaanu isugu nimi badayada inaanay seelahayn badda Soomaaliba iskale Muuse lama saxiixi karo cid kale lama saxiixi karto dalku madaxweynuhu leeyahay madaxweynihiisuna waa Xasan Sheekh marka waxa weeye halkan waxaan u taaganahay banaanbuxuna maanta maaha berina maaha saadambana maaha wuu soconayaa ilaa inta uu ka noqonayo Abi Axmed khaladka uu dalkayaga ka galay intuu ka noqonayo banaanbaxaas waa jiraya Soomaaliya taaka inta leeg cid ku soo xadgudubta ma jirto Soomaalidu waa midaysan tahay haddii lagu soo xadgudbo Soomaalidu waa israacda waana midowda 77 way ogeyd wixii ka dhacay Itoobiya tii mid ka midi intaanay kugu dhicin Abi Axmed oo dagaalada dhul badan kaaga socda dagaalkan iska damiyo saxeexan cid ku saxeexday ma jirto Xasan Sheekh waa saxeex wada gashay waa ma jawaabta meesha taala marka yaa lagu khaldine
dib uga noqo Soomaaliya Soomaali baa leh badayada lama saxeexi karo lama iibin karo dhulkayaga taaka kamida laguma soo xadgudbi karo Soomaali waxay ka midaysan tahay inay dhulkooda iyo dadkooda iyo cirdigooda iyo diintooda iyo dalkooda daafacaan wassalaamu calaykum عليك السلام هاي هو بنو ورن dareenkaaga nooga waran dareenkeena waxa uga hadlaynaa maxaara madaxa waxay gashteen inaan kala daadsanahay inay naga xoog badan yihiin Soomaali waad ogtahay dadkii aan nahay aan kala daadsanaano laakiin waa la isku duubmay wax aad qaadi kartidna malaha waxa dhulkeena imaan kartidna malaha Soomaaliya leh badeena iib ma aha موسى بيحي وحو مدحوين وياهينا ملاها ودن كان محكومي كرو بدنا محكومي كرو تعكير أم عارم من أسوق هذا كران هاي go ahead هاي وما سنتهاي درين كانوا ما أنت قاعد بوكعسين هاي هذان هاي جاليد الصومالية يكونوا الودن كيوكي جارهان مقالة لندن درين كانوا أنت قاعد بوكعسين هاي وحن آدي وقصهور جدنا تعدي وين نوجي ستي دولة إثيوبيا أنا جو آخرا وين أو الصومالية إني قانان طريق ذا إنه هيرك إيجارسي سنتهاي إني كسر حد قدبان بدأ إنه كسر حد قدبان أدبا نجحنا هاي منك يلي دون إنه هدانا هاي الصومالي ملك استيجوكتو الصومالي واميدا سنتهاي مرك كلية الصومالي ذو أميدا واحد هاي مرك اللي كسر حد قدبو عردي جوده شرفته هذا دول كوده يبدو هذا ما أنت قولي وانول هاي ضمير كانوا وانول هاي وحنا ربنا ملك استأدوك أنك جوجنو إثيوبيا هؤلاء إن قفل بالصومالي وإيمان دونه ذل كان ودفاع دونه أنا ودي منينه وحن لي هاي صوماليا هالنولات waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogto oo dalkooda iyo diintooda inay difaacdaan bad iyo biriba diyaar u ah waxaan ognahay Itoobiya ilaa 1800 iyo xoogaagii waxay rajaynaysay inay dalka Soomaaliya si ay ku soo gashaba hadba dhinac ka soo istaagto markastana waa jiray nin dhuuni qaata ah SYL waqtigii aad maqasheen oo SYL ay u istaagtay dalkan rag baa u soo diriray 64 rag baa u soo diriray 77kii rag baa u soo diriray rag Soomaaliyeed baa dhulka hoostiisa u galay oo aan tiro lahayn oo malaayiin gaaraya ma doonayno maanta nin dhuuni qaata ah inuu yiraahdo badda Soomaaliya iyo biriga Soomaaliya ayaan gadayaa oo aan siinayaa Itoobiya oo inta ayadu marmarsiyo u raadinaysay dhulkan iyo dalkan inay qaadato waxaan leeyahay marka nin baa wuxuu yiri dalkanaga barigii Mareykanku xamar yimidaanin wuxuu yiri dalkanaga iyo diintanada haddaan duulan ku ahayn duufaan madow ayaa naga dul qaadeen aleelih dadaalka wadiin waa ku diirsaday xasan sheekh maxamuud iyo xamse cabdi bare iyo baarlamaanka iyo dawladda dhexe waxa weeye sida ay wax ku wadaan iyo maaragta diblomaasiyadda haddaan nahay shacabka Soomaaliyeed waan ku taageersanahay waan garab taagannahay hiil iyo hooba garabkoodaan taagannahay inaanu dalkeena u dhimanaan diyaar u nahay inaanu dhaqaale ku bixinaan diyaar u nahay inaan waxaan maamulada isku sheegahayo wada ajansiga ah inaanu midowno oo Soomaalinimadii la arki jiray ilaa meesha ugu dambayda bad iyo biri aanu dalkeena difaacnaan diyaar u nahay Soomaali waxa laga rabaa maanta ma taagna anaa reer hebel ah anaa beeshaana anaa maamul goboleeda maanta waxay taagan tahay 120 milyan oo Itoobiya ah oo malabsanaysa oo bad iyo biriba qaxootigooda hadii maanta Soomaali kuwa dalka dhex jooga oo qaxootiga sheeganaya waxa la rabaa gudaha markay ku soo bataan in qoryo loo qaybiyo dadka Soomaaliyeed ateeshikiisu habato kuwa maamulada dhex degan anigu malihi dad islaama oo masaakiina hala dhibaateeyo laakiin booliis ahaan ha loo shaqeeyo nabad sugid ahaan ha loo shaqeeyo dadka soo galaya oo qaxootiga sheeganaya oo militariga ah wada beeshika ah oo Itoobiya soo dirtay indha gaar ah loo yeesho Puntland bay joogan waqooyi galbeed bay joogan waxay joogan galmudug waxay joogan Hirshabeelle waxay joogan ilaa ceelasha biyaha waxaas oo dhan koonfur galbeed Kismaayo kulligood waxay doonayaan hadhow inay hub u qaybiyaan markay gudaha soo galaan adunkuna waxaad u haysataan dad masaakiina oo qaxootiyo oo dalka u yimid inay ma ahan masaakiin haday masaakiin yihiin beeray fala lahaayeen waxay samay lahaayeen hadii ilaahay ku roon yahay waxaad arki lahaydeen ayagoo dhaqdhaqaaq activity dadka dhexdiisa ku sameynaya dalka iyo dadka iyo diinta loo diyaar garoobo ma ahan waqti aan isdhigana ma joogno midda kale kuwa moodaya maantay in qolo gaara la doonayo
ama nin gaara loo dan leeyahay looma dan laha ummadda Soomaaliyeed oo dhan baa loo dan leeyahay shacabkeennaa loo dan leeyahay dhulkeennaa loo dan leeyahay badahan loo dan leeyahay waxyaalahan hadda dawladahan igad oo ay leeyihiin Itoobiya arrimaha ka heshiido waxay nagala heshiinayaan ma jirto hashan nin xoolihiis nin kale lagu laba shirkooyo gar jilicsan mayd baa hoos yaalla waxaanu diyaar u nahay dalkeenna iyo dadkeenna ayadoo ciidankeenu 2000 oo yahay 64 ayaanu Itoobiya meel cilla banaanka dhignay ma yeelayno inaanu maantay inay maantay nahaweystaan dad aan u qalmin dalkeenna inay soo haweystaan waxa weeye Soomaaliya maanta Soomaali baa leh mana doonayno in maanta dalkeenna la soo haweysto madaxweynaheena Xasan Sheekh Maxamuud baan garab taaganahay diblomaasiyad baan ku garab taaganahay waxaanu ku garab taaganahay xoog waxaanu ku garab taaganahay dhaqaalo dal iyo diinba inaan difaacanaanu diyaar u nahay Soomaaliyay maanta fadhiga ka kaca dawladda hal garab istaago aad iyo aad baad u mahadsantihiin waad mahadsantihiin. The need to respect Somalia's sovereignty. All nations, including Ethiopia, regardless of their size or power, deserves to exercise their rights and make decisions about their government and their territories. The occupation of Ethiopia and the MOU deal that was signed earlier in Addis Ababa must be immediately end to this occupation. Somalia should be allowed to exercise full control of its sea, land, and territories. It's only through the respect for the sovereignty and the peace we can hope to promote peace, stability, and development in the region of Horn of Africa. It's crucial the global community Ethiopia's occupation of Somalia's seas and territory warrants our utmost attention and concern. We must stand together and demand the respect of Somalia's sovereignty. It is through this respect that we can only hope foster peace, stability, and prosperity in the region of Horn of Africa. Let us unite in the effort of peace and ensure justice is served and the rights of Somali people are upheld. Thank you. maanta waxaan halkan u joognaa banaanbixii aan ugu talagalnay mowqifkeeni oo ahaa in badeena aysan beec ahayn marka dhammaan inta naga daawanayso TV-yada waxaan leenahay maanta waxaan muujinay mowqifkeeni ahaa in badaas aysan beec ahayn Soomaalina Soomaali baa leh dhammaan anoo kaga faa'iideysanayo fursadan meel walba ee Soomaali ay joogto waa in ay u istaagaan difaaca dalkooda waxaan ku soo koobayaa anoo u mahad celinayo dhammaan jaaliyadii soo qabanqaabisay jaaliyada UK oo ugu horeeyo gudoomiyaha jaaliyada UK Dr. Said iyo dhammaan intii maanta ila socotay anigoo ku hadlayo magacayga iyo magaca gudoomiyaha jaaliyada Bristol iyo dhammaan inta isoo raacdana waxaa leeyahay waa ku mahadsantiin sida aad maanta u muujiseen mowqifkiina qobo walba oo jiro wax walba oo jiro aad ka hormarseen danaha iyo dalkiina aad ka hormarseen mid labaad waxaan rabaa anoo kaga faa'iideysanayo fursadan jaal madaxweyne waad mahadsan tahay sida aad maarta mar walba aad ugu taagan tahay difaacidda dalka marka waana waajibna wada saaran waxaana leeyahay Soomaali guul iyo gobonimo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh awalan ilaahay ayaa mahad iskale markii xiga dadkii soo qaban qaabiyay banaanbaxan ayaa mahad iskale iyo dadkii ka soo qayb galay maanta waxaan meeshaan u joognaa safaaradda calankeedu meeshaas ka muuqdo Ethiopia inaan ku hor mudaharaadno oo aan u sheegno inaan badeennu iib ahayn dadka Soomaaliyeed ee ka soo qayb galayna way mahadsan yihiin iyo kuwii soo abaabulay waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed baaq u diro meel kasta oo ay joogaan waa in ay safaaradda Ethiopia horteeda sidaan oo kale u soo istaagaan muujiyaan shucuurtooda la garab istaago madaxweynuhu waa mahadsan yahay asaga doorkiisi waa qaatay siyaasadeed waad arkayseen midowga Afrika
hadda ugu dambaysa Masar uu joogaa shaqo fiican u hayaa madaxweynuhu dhinaca siyaasadda waa ku guuleystay waxaa la rabaa dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay isku duubni muujiyaan u diyaar garoobaan haddii ay dagaal noqoto iyo haddii ay difaac noqoto annagu waxaan leenahay badeennu iib maahan waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan baaq u diro baaqaasoo ah in ay sidaynoo kale u soo banbaxaan soo istaagaan muujiyaan shucuurtooda bini'aadanku marka uu shucuurtiisa muujiyo dal iyo dibadba waa la ogaanayaa annagu waxaan rabnaa inaan ummadda Ethiopia annagu colaad nagalama dhaxayso dagaalna kulama jirno laakiin waxaan rabnaa inaan u sheegno inaan badeennu iib ahayn dhulkeennu iib ahayn badeennu iib maaha dhulkeennu iib maahan waxaan rabaa Soomaaliya ha israacdo Soomaaliya ha midowdo Soomaaliya ha guulaysato runtii isku soo baxan wuxuu daaran yahay in Soomaalidu ay leedahay Soomaaliya in heshiis beenaadka dhacay inaan ka soo horjeedno Ethiopia waxaan leenahay ha aqbasho nidaamka caalamiga ah qawaaniintana ha u ogaansato waxa weeyaan annagu ma ogolin 1 centimeter ee dalkeena ka mid ah Ethiopia out of the Somali country waxa weeyaan marka waxaan u baahanahay in Soomaalidu ay midowdo madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya mudane xasan sheekhna sidoo wuxuu hogaaminayaa raalli baan ka nahay waa in aan midowno waqtiga Soomaaliya ay midow lahayd aynu nahay runtii gudoomiyaha waa mahadsan yahay gudoomiye Dr. Saciid aad u mahadsan yahay aniga oo ku hadlaya magaca baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo waaxda arrimaha dibadda jaaliyadda waaxda arrimaha dibadda wasaaradda arrimaha dibadda waaxda qurba joogta agaasinka qurba joogta magaciisa ku hadlaya Dr. ninka la yiraahdo Guure waxaan leeyahay waxaan hambalyaynayaa gudoomiyaha iyo jaaliyadda dhammaan abaabulka runtii ay galeen oo sida quruxda badan loo soo abaabulay loo soo agaasimay runtii ummadda Soomaaliyeed maanta waxa waajib ah nina dhiig buu shubaa nin shilin buu bixinaa ninna qabowgaan uu taagan yahay wuxuu leeyahay fikirka qaranka Soomaaliyeed hogaanka sare ee dalka Dr. Xasan Sheekh Maxamuud uu hogaaminayo hadafka isaga inay ummadda Soomaaliyeed ee UK ku nool jaaliyadda Soomaaliyeed waa jaaliyadda ugu ballaaran Ingiriiska ku nool ilaa 800 kun ay ku nooshaa qiyaastii wax lagu aadiya ka badan ayaa waxay aaminsan yihiin fikirkaasi qaranka Soomaaliyeed uu qaatay in ay ayaguna taageerayaan garab taagan yihiin gelin hore iyo gelin dambaba sidoo gudoomiyaha u sheegana arbaca kasta in halka mudaharaad uu ka dhaco waa hadafka guud ee jaaliyadda ay leedahay maanta mudaharaadkan dhacay waxaan anigu hadda goobjoog ka ahay waxa ligu wargeliyay in mataqaana maanta uu hordhac u yahay laakiin idaacadaha dalka Soomaaliya ka jira qaarkood oo halkan runtii branches ku wada leh waxaan rajaynaynaa ka codsanaynaa inay dhammaan yimaadaan munaasabadda tan xigta oo imaan doona sida Universal oo kale sida TV-ga qaranka oo kale sida Kalson TV sida mataqaana home cable sida mataqaana TV-ga la yiraahdo 5 TV-daas oo dhan waxaan rabnaa inay dhammaan ay wadaniyadooda cadeeyaan oo munaasabadan ay cover gareeyaan ayay ahayd laakiin tan ku xigta definitely waa inay sameeyaan waxaan bogaadinayaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo intuba jaaliyadda maanta dadaalka ay sameeyaan shacabkan aad aragtaan ee halkan isugu soo baxay ayaa waxay sheegeen in iyagu ay ka xun yihiin isla markaana ay nasiib darro ku tilmaameen heshiiskaasi dhex maray Somaliland iyo dalka Ethiopia waxa ay baaq u direen dawladda Ethiopia iyo guud ahaan caalamka iyaga oo sheegay in ay diidan yihiin heshiiskaasi kana soo horjeedaan waxay sheegeen in ay muujinayaan midnimada jaaliyadda Soomaaliyeed ee Ingiriiska dadkan aad aragtaan daawadayaal waxa ay ka kala yimaadeen qaybaha kala duwan iyo magaalooyinka kala duwan ee dalka Ingiriiska iyo gobollada kala duwan iyagoona maanta isku balansaday in ay hor yimaadaan safaaradda Ingiriiska safaaradda aan idhaahdee dalka Ethiopia si ay shucuurtooda u muujiyaan waxay sitaan boorar kala duwan oo ay ku xardhan yihiin eraya muujinaya sida ay u diidan yihiin heshiiskii afgaradka ahaa ee gobollada waqooyi ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee Somaliland iyo dhex maray dalka Ethiopia 1 bishan Janaayo dadkan waxay sheegeen sidoo kale in la joogo xilligii ummadda Soomaaliyeed ay u midoobi lahayd difaaca dalkooda qarannimadooda iyo biyahooda intuba waa markii ugu horeysay tan iyo markii heshiiskan la saxiixay oo Soomaaliya intaan la eg ay isugu soo baxda safaaradda Ethiopia horteeda si ay heshiiskan diidmo ugu muujiso